wararku dambeeyay ka helayno magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafadaha magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in uu ka bilaawmay qax aad u fara badan markaas laga dareemayo xaafadaha magacooda lagu kala sheegay Cunay iyo Tawfiiq iyo Cadaada Dugaandug iyo sidoo kale Abo Sharow iyo sidoo kale suuqa xoolaha xaafadahaas ayaa gabi ahaanba laga qaxaya maadaama ciidanka dawladda goboleedka Koonfur Galbeed oo aad u fara badan ay dawladda Koonfur Galbeed ay soo dejisay xaafadahaas qayb kamid ah waxaan helaynaa muuqaalo oo dad shacab ah oo ka qaxaya xaafadaha markaasi ay ayagu deganaayeen ayagoona markaasi ku qeexay ama sheegay in ay amni dare ay u qaxayaan xaafadaha maadaama habeenadii ugu dambeysay weerar noocyadooda kala duwan ay ka dhacayeen xaafadaha qaar ee magaalada Baydhabo xaafada Dugaandug oo ah xaafado kamid ah magaalada Baydhabo ayaa saaka qax aad u badan laga dareemayaa ayagoona shacabka magaalada Baydhabo ay iskaga qaxayaan xaafadaasi ayagoona markaasi la xiriirta xaalad siyaasadeed oo markaasi dhawaan ka dhax qarxaday magaalada Baydhabo ayadoona ciidamo aad u fara badan ay soo dejiyeen dawladda Koonfur Galbeed qayb kamid ah xaafadahaasi magaalada Baydhabo qayb kamid ah xaafadaasi Dugaandug ayadoona la leeyahay dadkii shacabka deganaa xaafadaasi gabi ahaanba waa iskaga qaxay oo waxaad u jeedaan muuqaaladan aad u faraha badan oo dadka shacabka oo markaasi baabuurta iyo alaab markaasi ku rarnaya ayagoona markaasi ka qaxay xaafada Dugaandug ee xaafadaha kamid ah magaalada Baydhabo tani ayaa muujinaysa in magaalada Baydhabo gabi ahaanba soo wajahday xaalad amni dare ah ayadoona markaas ciidanka dawladda goboleedka Koonfur Galbeed la geynayo meelaha xaafadaha ee shacabku ay degan yihiin sidoo kale dhinaca ciidanka isbedel doonka ayaa baaq u soo diray in gabi ahaanba iskaga fogaadaan meelaha ciidanka dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ay soo degayaan dadka shacabka degan ayagoona markaas sheegay inay soo weerari doonaan ciidankaasi wixii markaasi halkaasi ka dhacana dawladda goboleedka Koonfur Galbeed ay madax saaran doonto ama dawladda goboleedka Koonfur Galbeed lagu la xisaabtami doono taasi ayaa sababtay in shacabka Koonfur Galbeed ay iskaga qaxaan magaalada Baydhabo waliba xaafadaha qaar oo si gaar ahaan u bartilmaamaysanayaan ciidanka isbedel doonka ee markaasi ku sugan duleedka magaalada Baydhabo xaafadahaasi ayaa waxaa laga dareemayaa qax aad u badan ayagoona markaas dadkii shacabka oo xaafadahaas lahaa ay u qaxayaan tuulooyinka magaalada Baydhabo iyo meelaha kala duwan ee markaasi ay ku heli karaan ammaan Baydhabo ayaa wajahaysa xaalad cakirin markaasi shacabka Koonfur Galbeedna ku qasabtay inay ka qaxaan xaafadaha ay degan yihiin ee kamid ah magaalada Baydhabo wararka u dambeeyay ka helaynana xasilooni dare ayaa laga sheegayaa xaafadaha kamid ah magaalada Baydhabo tani ayaa markaasi muujinaysa ciidanka dawladda goboleedka Koonfur Galbeed in naftirkooda aysan ka marmayn qalqalgelinta amniga shacabka labada dhinac meesha ku loolamayana waxa bartaasi ku baaba'ay shacabka degan xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ayadoona shacabkii ay garwaaqsadeen inay gabi ahaanba ka dhaxbaxaan xaafadaha ay ayagu degan yihiin oo labada ciidan oo labada dhinac kala taageersanba markaas ay ku dagaalamayaan magaalada Baydhabo ayaa qax aad u badan laga dareemayaa ayadoona la helayo muuqaalo markaas dad shacab ah oo ka qaxaya xaafadahaasi wararkii u dambeeyay ka helaynana waxa ay muujinayaan in dadka shacabka ah gabi ahaanba ay iskaga qaxayaan xaafadaha qaar magaalada Baydhabo